haatana dhagaystayaal ku soo dhawaada xubintii galka baarista waxay noo soo jeedinaya Haaruun Macruuf. muran iyo wada shaqayn la'aan u dhaxaysa taliyaasha ciidamada AMISOM iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa caqabad ku noqotay howlgalkii ugu dambeeyay ciidanka dawladda Soomaaliya ay ka sameeyeen gobolka Shabeellada Dhexe ee ka dhanka ah Al-Shabaab. sidaas waxa uu galka baaristu ka ogaaday saraakiil ka tirsan howlgalka midowga Afrika ee AMISOM iyo saraakiil amni oo Soomaali ah. muranka ayaa si gaar ah ugu dhaxeeya taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Sareeye Guud Odawaay Yuusuf Raage iyo taliyaha ciidamada AMISOM General Diomid Ndagaya. muranka ayaa intiisa badan salka ku haya howlgal military oo muddo bil ah ka socday gobolka Shabeellada Dhexe kaasi oo hoggaan ka ahaa taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya Sareeye Guud Odawaay Yuusuf Raage. howlgalka Shabeellada Dhexe waxa uu bilowday 23kii bishii May waxaana uu socday muddo bil ka badan waxaana gunaanadkiisii ay taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ku dhawaaqeen inuu guuleystay. hase yeeshee taliyaha ciidamada AMISOM General Diomid Ndagaya iyo taliyaha ciidamada Burundi ee ka howlgala Shabeellada Dhexe Sareeye Guud Talasforo Brandreka ayaa ku eedeeyay Sareeye Guud Odawaay Yuusuf Raage inuu howlgalkaasi isku kali yeelay oo aanu la socodsiinin taliska AMISOM gaar ahaan ciidamada Burundi oo qaabilsan deegaanka uu howlgalku ka dhacayay. sidaas waxaa galka baarista u sheegay sargaal sare oo ka tirsan xarunta looga arrimiyo ciidamada AMISOM. sargaalkaasi oo codsaday inaan magaciisa la sheegin sababtoo ah idan uma haysto inuu la hadlo warbaahinta waxa uu galka baarista u sheegay inaan weli la xallin muranka u dhaxeeya labada taliye oo soo bilowday bishii hore. caqdad xun ayaa ka dhaxaysa labadooda ayuu ii sheegay sargaalkaasi oo la socda muranka u dhaxeeya labada taliye. sargaalka sare ee ka tirsan AMISOM waxa uu sheegay galka baarista in Sareeye Guud Odawaay Yuusuf Raage uusan howlgalkaasi la qorsheynin taliyaha ciidanka AMISOM. in la wada qorsheeyo ayaa meesha ka maqan. taliyaha ciidanka Soomaalidu waxa uu doonayay inuu muujiyo kartidiisa inuu howlgalkaasi fulin karo AMISOM la'aanteed. taasina sidii uu filayay uma aysan dhicin. markaas ayuu taageero ka soo raadsaday taliyaha AMISOM ayuu yiri sargaalkaasi oo intaasi ku daray waxa uu ka doonayay AMISOM in diyaarado lagu gargaaro gantaalo ku tuura meelaha ay Al-Shabaab ku sugan yihiin ee duurka ah laakiin meesha ay ku sugan yihiin lagama haynin sirdoon sax ah. taliyuhuna waa uu ku gacan sayray qayladhaantiisii ayuu yiri sargaalkaasi ka tirsan AMISOM. sargaalkaasi oo ka hadlayay sababta ay AMISOM ciidamo la howlgala kuwa Soomaalida ugu diri weyda howlgalka Shabeellada Dhexe ayaa galka baarista u sheegay in ciidanka Soomaalidu ay ku guuldareysteen inay AMISOM kala wareegaan 3 saldhig oo kala ah Buurane, Goloole iyo Ceel Baraf si ay u diyaariyaan ayuu yiri ciidamo guurguura oo la howlgala ciidanka Soomaalida. markii ay ciidanka naga codsadeen waxaan ku dhahnay idinka ayaa gacmaha naga xiray waa diideen inaad saldhigyadaasi la wareegtaan. waxaan idinku caawin karnaa inaan madaafiic ku tuurno meelaha shabaabka lagu tuhmayo si aan argagax ugu ridno ayuu yiri sargaalkaasi. laba sargaal oo dhinaca amniga ah isla markaana ka warqaba murankan ayaa galka baarista u xaqiijiyay kala aragti duwanaanshaha labada taliye ee howlgalkii ka dhacay Shabeellada Dhexe. galka baaristu waxa uu la xiriiray taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Sareeye Guud Odawaay Yuusuf Raage waxaana uu ku gacan sayray inuu wareysi ka bixiyo khilaafka u dhaxeeya isaga iyo taliyaha AMISOM General Diomid Ndagaya. hase yeeshee afayeenka ciidanka xoogga dalka Soomaaliya gaashaanle sare Cali Xaashi Cabdinuur waxa isagoo la hadlayay galka baarista uu beeniyay inuu wax khilaafa ka dhaxeeyo AMISOM iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. waxa uu sheegay inaanu jirin wax muran ah. ma anigu ma arko mana ogi runtii khilaaf AMISOM iyo wasaaradda gaashaandhigga ka dhaxaysa ma ogi laakiin howlgalka ka jiray Shabeellada Dhexe waxaan qiyaasayaa in maaragtay ay AMISOM ka qayb qaateen weliba xilligii dambe oo mataqaanaa la weerarayay meesha la yiraahdo Xaaji Cali Fooldheere iyo Qurac Madoobe iyo Waaraxley markii la weerarayay in mataqaanaa ay ka qayb qaateen ma ogi marka mataqaanaa wararkan kale oo wariyaal baa tiiri meesha adinku aad ka hesheen laakiin wax khilaaf aniga mataqaanaa oo aan ogahay ma jirto oo dhaxgalay howlahaas dhaxgalay ma ogi. marka haba yaraatee waxaad leedahay wax xiisad ah ama xilif ah ama muran oo ka dhaxeeya taliyaasha AMISOM iyo taliyaasha SNA ma jiro. ma jiro mana ogi aniga mana jiro umalayn ma inuu jirana. haddaan dib ugu laabano waxay ahayd bay leeyihiin AMISOM inaan ka guurno Golooley, Buurane, Ceel Baraf iyo Miirtaqwas ilaa haddana kamaanaan guurin. taasi waa iyaga dhinacooda iyagaa saas dhahaya. meelaha in laga guurana waxay noo sahli lahayd bay dhaheen
inaanu helno ciidamo guurguura oo la shaqeeya ciidamada Soomaaliyeed laakiin deegaanadaas lama wareegin marka su'aasha la isweydiin karo waxa weeyaan ciidanka Soomaalidu maadaama kulankii Abriilna la yiri iyagu hoggaanka ha qabtaan hawlgallada diyaar ma u yihiin furimahan hore saldhigyada ku yaala inay kala wareegaan AMISOM annaku ciidamada xoogga dalka Soomaaliya inta aad sheegtay way degan yihiin AMISOMna way degan tahay waana laga hawlgalaa oo ciidamada maaragtay Soomaaliya way ka hawlgalaan laakiin ma taqaana annaka ama gaashaandhiga ama AMISOM meel ay tiri ma taqaana kaalay nagala wareega ama lagu heshiiyay in la yiraahdo بالمثل دور آج أما دور صدق أو فديان هالجوري جيو إذا ماذا سوماليا ما أينا دعين ما نجرته لكن حلي عيد عضو أو عيد عضو إن اللي يرادو ملهبل يملهبل ويكون جوري سا أمسهم ديار بيقول إذا ماذا إن أي سلقي داس أي الكالوريجا qoraallo ku salaysan murankan ayaa la sheegay inay isdhaafsadeen taliyaasha ciidamada AMISOM iyo SNA qoraaladaasi oo loo diray wakiilka gaarka ah ee midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya ambassador Francisco Madeira dalka baaristu waxa uu helay warqad uu taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya kaga jawaabayay warqad uu 4 Juulaay taliyaha AMISOM u qoray ambassador Madeira taasi oo kula socodsiinayay xiisadda ka dhalatay hawlgalka Shabeellada Dhexe warqadda uu qoray taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Sareeye Guuto Odawaay Yuusuf Raage waxa uu galka baaristu ka helay laba ilo wareed oo kala duwan galka baaristu waxa uu warqadan iyo tan uu qoray taliyaha ciidanka AMISOM hordhigay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Sareeye Guuto Odawaay Yuusuf Raage waxaana ka codsaday inuu wareysi ka bixiyo taliyuhu waxa uu ku gacan sayray inuu wareysigaasi bixiyo sidoo kale taliyuhu ma beenin jiritaanka waraaqahaas taliya Odawaay Yuusuf Raage waxa uu ku sheegay warqadda uu qoray ambassador Francisco Madeira in warqadaasi uu soo qoray taliyaha ciidanka AMISOM aysan sawir sax ka bixinaynin xaaladda waxaana uu ku tilmaamay isku day lagu diidayo laguna qarinayo guuldarrooyinka ciidamada Burundi ee la dagaalanka al-shabaab sida uu ku sheegay qoraalkaasi Sareeye Guuto Odawaay Yuusuf Raage waxa uu ku eedeeyay ciidamada Burundi inay madadaaliyaan al-shabaab isagoo yiri al-shabaab waxay saldhigyo ku leeyihiin meel 8 ilaa 13 kiiloomitir u jirta saldhigyada ciidamada Burundi waxa uu sheegay inay si caajis ku jiro u waajahaan al-shabaab ayna ka doorbidaan inay xeryahooda iska joogaan oo biyahana dhinaca hawada looga soo dhaamiyo magaalo u jirta 8 kiiloomitir halkii ay ka furi lahaayeen wadooyinka sida uu ku sheegay qoraalkaasi waxa uu Sareeye Guuto Odawaay Yuusuf Raage ku sheegay warqadaasi inuu kala xiriiray AMISOM inay hawlgal wadajir ah sameeyaan balse ay AMISOM la yimaadeen cudurdaar ah inay ciidamo soo ururinayaan iyo tashiilaad inay u baahan yihiin waxa uu ku sheegay warqadaasi in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku guuleysteen hawlgalkaasi qaybta shanaad ee AMISOM la'aanteed ujeedooyinkii hawlgalkana la gaaray iyadoo la dilay in ka badan 100 al-shabaab ah oo ay ku jiraan mintidiin ajaanib ah galka baaristu waxa uu sidoo kale la xiriiray wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya ambassador Francisco Madeira oo isla markaana ah madaxa hawlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya waxaa sidoo kale u gudbiyay ambassador Madeira qoraaladii ay u kala direen labada taliye ilaa haatan kama uusan soo jawaabin codsigii wareysiga ee aan u gudbiyay sidoo kale galka baaristu waxa uu la xiriiray taliyaha ciidamada AMISOM General Diomede Ndagaya markii uu wareysiga ogolaadana waanu idiin soo gudbin doonaa 22 bishii Juun ee aynu soo dhaafnayna hawlgalka ciidamada AMISOM waxay ciidamadooda kala baxeen magaalada Maringubay ee gobolka Shabeellada Hoose gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Cabdulqaadir Maxamed Nuur CD waxa uu VOA u sheegay in la filayay in ciidamada Soomaalidu ay la wareegaan tuulada Maringubay tuuladaasi waxa haatan ka taliya ururka al-shabaab gudoomiyaha oo xilligaasi la hadlayay VOA waxa uu sheegay sidan arrintaas waxa la filayay in ciidamada Soomaaliya oo ay maxaasurada bedelaan ciidanka AMISOM mayna dhicin ciidankii dawladda federaalka militariga maysan imaan salaliga marka AMISOM ay ku soo baxeen meeshii maxaasurada argagixisada al-shabaab kulleyba ayagoo maxaasurada oo sahan ayay yimaadeen hadda si toosan uma qabsan laakiin sahankoodii waa yidhi si naloo sheegayo marka sidee bay ku dhacday inay ciidamada AMISOM iyo kuwa Soomaalida dhexdooda ka baxdo maxay isugu haleeyeen arrintan uga baaha ciidamada dawladda federaalka ama dawladda federaalku waxay saxiixday muddo laga joogo dhowr sano in ciidamada AMISOM macnaha meelaha ka baxeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliya militariga lagu wareejinayo waxay ka dhacdeen maxaasurada afgooye dhowr bilood ka hor laakiin ciidamada xoogga dalka Soomaaliya lagu wareejiyey AMISOM markay afgooyka guuraysa xafladii lagu qabtay haddana waxay ka guureen dhowr bilood ka hor Mashalay oo u dhaxaysa meesha la yiraahdo Shalambood iyo Qoryooley ama Danaw
ama kabtalaas iyo Qoryooley inta u dhaxaysa mashallah tuulo ku taalo Qoryooley u jirta adigu ilaa 10 kilomitir halkaas ciidan oo xoog dalka laga geeyay ciidan military laga geeyay halkaas shabaab maxaa ku dib u qabsaday oo haddana maxaa ku radaa isu socodka Qoryooley iyo maxaa ku radaa Shalambood iyo Markaba maxaa ku radaa caqabada ayaa ku jira oo nimanka argagixisada deegaanka loogu ciidamada xoog dalka Soomaaliyeed inay ka bedelaan ama la wareegaan may sameeyaan maadaama afgood maxaa ku radaa ugu ciidamada Soomaaliyeed kala wareegeen ciidanka Amisom tan la margubay taas oo kala way shalay markii xafladda la qabanayay aniga ka barakaab ahaan waa ka hadlay waxaan nidhi dowladda federaalka hoosgeeda iyo dowladda koonfur galbeed in halkan ciidanka kala wareegi lahaa inay si degdeg u keenaan si argagixisada maxaan ku rahdaa ayna mar dambe maxaan ku rahdaa dadka maxaan ku rahdaa waxyeelo u geysanin ayna dib u qabsanin shalay marka way dhacday hadda arrintaas afhayeenka ciidanka xoogga dalka Soomaaliya gaashaanle sare Cali Xaashi Cabdinuur waxa uu sheegay inaan iyaga lala socodsiin inay la wareegaan marin gubay ma la idin sheego ma la yidhi nagala wareega maya ma ogi aniga taas ma ogi maya adigu waxaad leedahay looma sheegin ama ma ogi sidaad sheegayso laakiin gudoomiyihii gobolka Shabeellada Hoose wuxuu leeyahay aniga joogay oo waxa ahayd in ciidamada SN ay yimaadaan marka xagee bay wax iska qaban laayeen horta gudoomiyaha isaga xukuma gobolkaas oo gudoomiye ka gobolka Shabeellada Hoose laakiin ka military ahaan annaka ama ka nidaam ahaan marin gubay waxa Amisom waxaan isleeyahay qiyaastayda iyo aqoontayda waxaan isleeyahay waxay marin gubay ugu guureen xeel dagaal bay ugu guureen iyo war ay heleen in mataqaana meeshaas ay ka guuraan waxa ay mataqaana ayakaana ka guuray laakiin meel ciidan ka guurayo waxaan waa ku soo celcelinay su'aashan ma aqaano waxay meesha wax ka jiraan mariye gubay annaka ma naloo sheegin oo nalama dhihin kaalaya la wareega because marka ay ka guurayeen already annaku waxaan ku jirnay iyo hogaankanaga iyo kantaliganaga iyo taliyahanaga kulliga waxaan ku jirnay hawsha Shabeellada Dhexe marka ay dhacday in lala wareego su'aashan laba jeer baa igu soo celisay Haruun Macruufow afgooye waxa ku yaal saldhigga ugu weyn waa lala wareegay ciidamada la wareegay marka beel lala wareegayna waa meel adduunyada ay fiirinayso oo mataqaana warbaahinta dhan ay joogto afgooye waa kala wareegnay laakiin meel kale oo aan kala wareegnay oo Amisom idrikaalay nagala wareega anagu aan ka baaqsanay ma jirto shan wadan oo kala ah Ethiopia, Kenya, Uganda, Burundi iyo Djibouti ayaa ciidamo ay ka joogaan Soomaaliya taliska Amisom iyo ciidamada Soomaaliduna waxay bishii Abriil ku heshiiyeen in ciidamada Soomaalidu ay hoggaanka u qabtaan hawlgallada marka la gaaro dabayaaqada sanadkan murankan ayaa la sheegay inuu dib u dhac ku noqon karo hawlgallada wadajirka ah iyo xil wareejinta mas'uuliyadaha amniga isla markaana ay ka faa'iideysan karaan ururka Al-Shabaab sida uu ku doodayo wasiirkii hore amniga Soomaaliya xildhibaan Cabdirasaaq Cumar Maxamed waxaa moodaa in xiriirka ka dhaxeeyo labada iyo coordination ka dhaxeeya Amisom iyo ciidamada SN ee Soomaalida inuusan wanaagsanayn saameynta ugu weyn waxa waaye in ay siisay fursad Al-Shabaab ay isku soo kabaan reorganization ama ay dib isugu soo abaabulaan yani meelo badan oo deegaano badan oo markaas nabad ahaa ama ay markaas base u ahayd Amisom ay ka baxeen la rabay in ciidamada Soomaaliyeed ay yimaadaan ay Al-Shabaab la wareegeen oo kamid ah Shabeellaha Dhexe iyo Galmudug labadaba arrintaas marka wada shaqayn la'aanta iyo doorkii Mareykanka gaar ahaan duqeymihii oo maqan ma kula tahay inay dhiirigelin u noqon karto shabaab absolutely waa sida sheegtay waa dhiirigelin weyn bay u tahay waa laba furne waxaa ka bilowday wada shaqayn la'aan oo waa Amisom iyo SN oo aan wada shaqaynin fursad weyn bay u tahay Al-Shabaab midda kaleetana waxa waaye droniski iyo weeraradii lala beegsanaya Al-Shabaab oo ka dhanka ah Al-Shabaab oo ay wadeen Amerikaanka mar haddii ay Amerikaan ka baxeen horta waa joogsadeen waxaan u maleynaa January 19 inay ugu dambeysay ayaan isleeyahay waa sax marka waxay fursad weyn siisay Al-Shabaab Samira Gate oo khabiir dhinaca amniga waxay galka baarista u sheegtay inaysan la yaab lahayn wada shaqayn la'aanta taliska Amisom iyo taliska ciidanka Soomaalida waxay sheegtay inay ku kala shaqaynayaan 2 saacadood oo kala duwan
xawaaraha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ay dalbanayaan maadaama ay haatan hoggaanka u qabteen howlgallada ma aha mid ay la saanqaadi karaan AMISOM sababtoo ah marxaladaha kala duwan ee uu maro ansixinta howlgalka AMISOM iyo sida howlgalkoodu u qaabaysan yahay ma dadejin karaan howlgalkan oo kale ayay u sheegtay galka baarista Samiira Geyd waxay ka digtay in arrimahan oo kale ay keeni karaan is-aamin darro ka dhaxaysa laba hay-adood oo ay tahay inay wada shaqeeyaan ciidamada AMISOM waxay ka shaqaynayeen Soomaaliya tan iyo sanadkii 2007 waxayna ku guuleysteen inay ilaaliyaan dawladda Soomaaliya iyo xarumaha dawladda iyo inay magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya ka qabsadaan al-shabaab iyagoo iskaashi la sameynaya ciidamada Soomaalida guddi qiimeyn ah oo ka socda midowga Afrika ayaa dhawaan dhameystiray warbixin ku saabsan mustaqbalka howlgalka AMISOM wixii ka dambeeyay 2021 qiimeyntaasi waxay ku talinaysay in 4 talo midkood la qaato marka ay noqoto mustaqbalka AMISOM ee wixii ka dambeeyay sanadkan 4taasi qodob oo kala ahaa in howlgalku uu noqdo mid wada jir ah oo ay wada yeeshaan midowga Afrika iyo qaramada midoobay iyo in dib u habeyn iyo dib u howlgelin lagu sameeyo ciidamada AMISOM ee xilligan jooga Soomaaliya iyo in Soomaaliya la keeno ciidamada heeganka ah ee wadamada bariga Afrika iyo in gabi ahaanba ciidamada AMISOM ay ka baxaan Soomaaliya AMISOM waxay sheegtay inay door bidayso qodobka ugu horeeya ee ah in howlgalku uu noqdo mid ay wadajir u yeeshaan midowga Afrika iyo qaramada midoobay dawladda Soomaaliya weli ma aysan sheegin wajiga ay doonayso inuu yeesho howlgalka AMISOM wixii ka dambeeyay 2021 hase yeeshee waxay gabi ahaanba ku gacan saartay qiimeyntaasi ay sameeyeen guddiga ka socda midowga Afrika